Sheekada lixaad. Ilaahay waxa uu Ibraahim siiyey Isaaq. Markuu Ibraahim gaboobay, wiilkiisii Isaaqna uu noqday nin weyn, wuxuu Ibraahim diray mid ka mid ah shaqaalihiisii, oo uu u diray wadankii uu ka yimid ee qaraabadiisu ku noolayd, si uu gabar ugu soo helo wiilkiisa Isaaq. Waqti dheer oo safar ah kadib, markuu shaqaalihii tegay dhulkii ay ku noolaayeen qaraabadii Ibraahim, ayaa Ilaahay ku hagaajiyey ninkii shaqaalaha ahaa gabar la yiraahdo Rebeka, oo ahayd gabar uu awoowe u yahay Ibraahim walaalkiis. Rebeka waxay ogolaatay inay ka tagto reerkooda oo ay raacdo shaqaalihii Ibraahim soo diray. Isla markii ay timaadayba, Isaaq wuu guursaday iyadii. Waqti badan kadib, Ibraahim wuu dhintay. Ballantii uu Ilaah la galay Ibraahim ee axdigii wuxuu ku wareejiyey Isaaq. Ilaah wuxuu Isaaq ugu ballan qaaday inuu heli doono ubad fara badan oo aan la tiri karin. Laakiin xaaskiisii Rebeka wax ubad ah ma dhalin. Isaaq wuxuu u duceeyey Rebeka. Kadib Ilaah ayaa ka maqlay ducadiisii, oo uur mataana ah ayay yeelatay. Intii ay carruurta uurka hooyadood ku jireen, aad ayay isugu dhib qabeen. Kadib Rebeka ayaa Ilaah weydiisay waxa ciyaalkeeda uurka ku jira ka dhex socda. Ilaah wuxuu u sheegay Rebeka inay dhali doonto 2 wiil, waxayna kala noqon doonaan 2 qabiil. Midkood midka kale wuu ku dhibtoon doonaa, laakiin kan weyn wuxuu u adeegi doonaa kan yar. Markii ay Rebeka dhashay, wiilkii ugu horreeyay wuxuu noqday mid timo guduudan oo timo fara badan leh, waxayna u bixiyeen Ceesow. Ka hor intii aanay dhalan ilmaha mataanka labaad, wuxuu cagta haystay Ceesow, waxaana loo bixiyey Yacquub.